السلام عليكم. halkan waa Hanweyn Media hoyga cilmiga iyo teknolojiyadda. Haddii aad jeceshahay horumarkeena, fadlan channelkan subscribe inoo dheh, kuna xirnaa goor kasta oo noqon dhiirigeliyaheena koowaad. waad ku mahadsan tahay booqashadaada. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعنا ونكسن داودياشنا قيمها يقايها نقمضا ميل والباجوكتان وحاد كسو دواتان موقال عصب. موقال كان إن شاء الله وحان كبردو نقابك الله سمية تيبل أما جدول markaad isticmaalayso Microsoft Word noocyadiisa kala duwan. balse daawada haddii ay tahay markii ugu horreysay asabaqo channelkan Hanweyn Media waxaan ka codsanayaa inaad subscribe inoo saarto sidoo kale aad furto gambeelka si aad u noqoto qofka ugu horreeya ee mar waliba hela muuqaaladeena cusub. sidoo kale ha ilmaamin inaad like, share iyo comment aad inoo siiso muuqaalkan. mahadsanid, weligaana guuleyso. soo dhaw marka la daawado dabcan muuqaalkan insha Allah waxaan ku baran doonaa qaabka loo sameeyo table ama jadwal. dabcan si aan u sameeyno table marka hore waxaad u baahan tahay inaad soo kiciso Microsoft Word kadib markuu ku keeno qaybtan home ka ahna waxaad dooranaysaa halkan ay ku qoran tahay insert. kadib waxaad imaanaysaa qaybtan ay ku qoran tahay table, halka ku dhufo. dabcan qaybo kala duwan ayuu leeyahay. halkan soo gal godadka hore waa in dabcan table-kii tirirkii jiifka iyo kuwa jooga ahba aad gacanta ku samaysato. dabcan kuwan iminka qaybtan jiif utaxa ah waxaa loo yaqaanaa rows, waana dabcan tirir jiifa. qaybahan kalena iyagana waa joog sida caadiga ahna waxaa loo yaqaanaa columns, waana kuwa joog utax ah. dabcan table-kaad abuuranaysan adiga ay ku xiran tahay inta jiif inta joogaad u rabto. tusaale ahaan waxaan rabaa iminka inaan abuuro table ama jadwal cusub kaas oo lagu diiwaangelinayo arday cusub. waxaan rabaa in aan u sameeyo 3 qaanad oo kala ah qaanad numberska ardayda tiradooda la gelinayo, qaybta kalena ardayda magacyadooda in la geliyo, qayb saddexaadna arday kasta galaaska uu noqonayo in lagu xareeyo. marka qaybtan jiifka 3 xaba iga dhig. okay, dhankan hoosna soo aad su'aal ardayda haddii ay yihiin 4 ama 5 oo kale way kugu filan tahay. halkan waxaan gelinayaa numberska ardayda, marka numbers xageeda. halkanna waxaan gelinayaa ardayda magacyadooda, magac dheh. halkanna waxaan gelinayaa arday galaaska uu dhigto fasal. dabcan maadaama numbers halkan la gelinayo waxaan rabaa inaan cabirkeeda yareeyo. halkan imaaw falaarta markay sida laba dhinac u kala baxdo inaan u soo jiid cadaadi. halkan marka numbers ay dabcan gali doono numberska qaabka loo geliyo insha Allah hore u soo baran casharadeenna hore qaanaan qaybta home oo kale aad imaanaysaa intan xaalad saaro. okay, kadib qaybtan imaaw numberska ay ku yaalaan kan oo kale dooro. okay, numberska dul imaaw xogaa inta u jiid geeskan geyso. markan waxaan diiwaangelinayaa ardayda magacyadooda. tusaale ardaygan waxaa yidhaa Cali Xasan Axmed oo kale, fasalkiisuna waa 5aad. dabcan haddii aad u baahan tahay cabirka inaad iska yaraysan waa yaray kartaa adigoo gacantaada isticmaalayo. xogaa dib u soo celi. okay, haddii aad jeceshahay table-ka isagoo wada jira inuu iminka hal cabir wada yeeshana halkaas ayaad geynaysaa falaarta. marka sidaa noqotana waa soo jiidaysaa kor iyo hoos meesha arta u jiid, cabirkaas ayuu qaadanayaa. dabcan haddii aad u baahan tahay table-ka qaabka hadda uu yahay inaad ka bedeshana waxaad imaanaysaa qaybtan ay ku qoran tahay design, halkaas ayaad ku dhufanaysaa. dabcan qaybahan badan ayaa ku diyaarsan halkan, noocyo kala duwan ayaa ka buuxa halkan. marka kii ku cajabiyo ayaad dooran doontaa insha Allah. haddii aad u baahantahay inaad gacantaada ku midabaysana waad samayn kartaa. dabcan qaybta aad rabto inaad midabaysa ayaad halaad saaranaysaa. tusaale waxaan u baahanahay qaybtan number iyo magaca iyo fasalkaba inaan midab gaar u sameeyo. marka hore markaa midabayso waxay imaanaysaa qaybtan. dabcan kadibna waxaad dooranaysaa kalarka aad jeceshahay in lagaaga dhigo. waa kahay numberska ayaan rabaa markaan inaan u sameeyo iyagana midab kale oo gaar ah. magacyada sidoo kale waxaan rabaa inaan u sameeyo midab kale oo gaar ah iyagana halkaas oon ka xulo
midabka aad jeceshahay. Okay, sidoo kale waxaan rabaa fasaladina u sameeyo ayagana sidoo kale midab kala gaar ah. sidoo kale waxaan rabnaa marka in qaab kale tijaabino. mar kale soo gal insert kana dooro table. waxaan imaataa qaybtan ay ku qoran tahay insert table, halkaa ku dhufo. dabcan qaybtan waxay u sameynaysaa si automatic ah tablekii aad rabtay in lagu sameeyo. kaliya waxaad gelinaysaa inta column iyo inta row aad rabto. dabcan row iyo column waxay kala yihiin column waa leenka jooga taxa ah, rowsna ay yihiin leemanka jiifa taxa ah. tusaale waxaan rabaa iminka in aan ka dhigo halkan 4 tiir oo jooga taxa ah iyo 4 kale oo jiifa taxa ah. marka okay dhaw maxaa dhacayo waa aragtay dabcan in la sameeyo 4 tiir oo joogo tax ah iyo 4 tiir oo jiifo tax ah. marka habka noocaasna waad sameey kartaa. haddii tableka markii aad sameeyso kadib uu kula yaraado si aad u badiso waxaad imaanaysaa tableka qaybtan ugu dambaysa godka ugu dambeeya maaw. kadib keyboardka waxaad taabataa qaybta ay ku qoran tahay tab, halka jugsi dabcan waxaa samaysmi doono row cusub. sidaas kuwa haddii ku dhagtana wax badan ayuu sameyn doonaa. dabcan sidoo kale waxaa jira qaab kale oo lagu soo daro row ama column cusub tableka. waxaad imaanaysaa tableka dhexdiisa kadib right click dheh, kadib waxaad ahdaa halkan ay ku taala insert. dabcan haddii aad u baahan tahay inaad ku darto column cusub dhanka bidix ama dhanka midig ama row cusub dhanka midig ama dhanka bidix, qaabkaas ayaad ugu dari kartaa. tusaale waxaan rabaa iminka inaan ku daro column cusub dhanka bidix. sidaasoo kale ayaad u samayn kartaa row cusub right click dheh, kadibna insert imaaw. kadib waxaad ku dhufataa insert rows above. waa iminka row ee lagu soo daray qaybta kore. marka sidaasna waa lagu soo dari karaa row iyo column cusub tablekii aad abuuratay. okay, haddii aan u baahanahay ka hor inaan tiro qaar ka mid ah tablekii aan abuurin maxaan sameynayaa? tusaale intaan ayaan rabaa inaan tiro. maxaan leeyahay right click dheh, kadib waxaan adaa delete cells, kadibna qaybta kore ku dhuf shift cells left, kadib okay dheh. dabcan iminka waad aragtay in ay tirmeen qaybihii aad ka calaamaysatay tableka, isla markaana waa la masaxay oo waa la tiray. sidoo kale waxaad isticmaali kartaa wax loo yaqaano eraser ama tirtire. dabcan qaybtan kore ayuu ku yaraa, halkan ku dhufo, kadib qaybta aad rabto inaad tirto ka xariimaha waa laga tiri doonaa. kanoo kale iska door waa tiray. daartida ku jiidi kartaa. okay, sidoo kale tablekan waad ku dari kartaa tirar cusub adigoo taabanaya qaybtan ay qoran tahay draw table. halkaa ku dhufo, kadib tableka dushiisa imaa qalinkan ka ku aadiso, fartaada ku cadaadi touchpadka ama muuska, kadibna hoos u soo jiid. okay, iminka waad aragtaa marka in lagu daray tiir cusub. markaana waxaan fiiri doonaa qayb saddexaad. table soo gal, kadib waxaad imaataa qaybtan ay qoran tahay draw table, halkaa ku dhufo. dabcan iminka waxaa lagu siinayaa qalinkaas ayaad ku sawiraysaa tableka aad jeceshahay adiga inaad samaysato. okay, tusaale sidan oo kale ayaan u jiidanayaa, kadibna anaa ku buuxinayo tirirkii jooga iyo kuwa jiifkaba. طبعا sidaas ay u sameynaysaa marka tableka. dabcan sameynta tableka ama jadwalka waxa aad u sahlanaysaa markaana fudud. dabcan waxaa jira tablada diyaarsan sida kalendarada oo kale. waxaad ku dhufataa tableska, kadibna waxaad imaataa qaybta ugu dambaysa ay ku qoran tahay quick tables, halkaa ku dhufo. dabcan waa kuwan ayna diyaarsan yihiin. mid ka mid ah tijaabi oo ku dhufo, kanoo kale ayaan tijaabinay. dabcan waa bisha May iyo maalmaheeda. dabcan intan kaliya waxay ahayd bilow, marka adiga laga rabo inaad dhamaystirato isla markaana aad qurxisato tablekaaga. dabcan sida u rabtana adiga ayaa yaqaano. kaliya iminka waxaan ku siinay furihii. haddaba walaal muuqaalka intaadan ka bixin waxaan kaa codsanaynaa haddii aad ku cusub tahay kanaalka inaad subscribe noo saarto, muuqaalkana aad like noo siiso. waad ku mahadsantahay dabcan daawashada muuqaalkan. muuqaalkeena muuqaalka xiga intaan kulmi doono waa walaalkiin Cabdirasaaq Cabdullaahi oo ku dhaafay sida ay nabadgelyo. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.